hawl aad iyo aad loogu baahnay waaye marar hore badanne culimadu ay isku soo dayday isku daygaas qaar ka midna culimo badan xataa ay naftooda ku waayeen oo ay muxuu ahaay ilaahay sabab uga dhigay meeshii wixii wax ugu fiicnaay oo qof uu ku sababaysto ayaanu culimadaasi ay ku sababaystay jannadii firdawsa allah ka waraabiyaan leenahay inta kadib maanta maalin aad iyo aad u weyn oo maalin farxadeed waay nimankan annagu siyaasiyiin waa hana la yiraahdo waa magac kale ha noo bixiyo laakiin in badan aan soo sheegnaan war qoladan khawaarijta maanta magacoodii rasmiga ah la siiyey kuwii baxay oo intay ka baxeen diintii ka baxeen yani hadii ay suluugi iyo dhaqanki wixii diintu soo degtay ay ka baxeen waa baxeen magac fiican la siiyey magac fiican waaye asagaasaana loogu dhawaaqi doonaa maanta wixii ka dambeeya hadii alla yiraahdo insha allah qof uga habboon oo magac u bixi lahayd culimada Soomaaliyeed ma jirto culimadii ayaana magaca bixisay intaas soo jeero hore ayaan waxaan dhahnay war nimankan waa koox maafiya ah burcad ah oo maro ama ku beerto diinta asoo hagoogatay oo ku dhex jirto qofku markuu saas u fiiriyo muxuu arkayaa hagoogii maradii ku hagoogneedo korku u saareedo arkaya diinkii dadkan alla ilaahay waa diinay ku jira maanta waa soo wadnay dadaal badan loo soo galay alxamdulillah maanta waxaan hubaa in maradii ama hagoogii in laga feeday oo ay waxa dhiman ay tahay dadku inay wada arkaan indhaha la isla saaro burcadnimadooda iyo maafiyanimadooda in maanta daboolkii laga qaaday oo culimadii Soomaaliyeed khayr Allah siiye ay ka qaadeen muxuu ahaay bayaankii khitaamiga halkan laga soo saaray fatwa ku jirto runtii oo diineed oo rasmi ah hadda ka hor ayaan sidoo kale sheegnay ku celcelinay laakiin codkii ugu habboonay ugu saxsanaa ugu xoog badnaa lagu dhihi lahaa maanta midka lagu yiri waay culimadii inay dhahdo ayadoo u midaysan arintaas waa maxay war lacagta aad shabaab siinayso ee dadka qaarkiis ay ku cudur daarayaan aniga waa cabsaday waa la idilayaa qofku waxaa la rabaa qowlka hadalka aad leedahay macnaha uu leeyahay waxa ka ratib maayo inaad taxliili kartid qof bini aadam ilaahay aqli siiyay tahay waa maxay macnaheeda war aniga ha idiline qaado kistaan markaad tiraad macnaheeda maxaa waay aniga ha idiline hebel soo dil Soomaa hebel yaalo soo dil Soomaa hadda halka laga dhawaajiyay 14 October wixii ka dhacay Zoobe wiilasha yaryar ee qalqaloocanay muxuu ahaay Maryaa Xunsitamiya isku soo duway oo dhaqaalay ku soo sameeyaan imiday ku iibsadaan imida hadda gaareen inay daroona soo iibsadaan gaaray yaa bixiyay walaalka Soomaaliyeed ee muslimka ah hadday cabsi ka tahayne cabsida ka bax hadday diin yari ka ahayd iyo faham yarine waa lagu sheegay maanta dadkii sheegi lahaay oo ugu habboonay inay sheegaan yaa ku sheegay dadkii sheegi lahaa ee ugu habboonaa iyo afkii lagu sheegi lahaa oo ugu habboonaa ayaa sheegay qaraxa dilka xabadda la riday ceelka la gubay masaajidka la dumiyay dhammaan lacagtaad bixisaa qayb ka ogow qofka lacag siinay shabaabo ogow maalintaad dhima lahaydna waa dhimanay inaad lacag bixisay ku badbaadi maysid inaad shabaab lacag siisay cimrigaagu ku dheeraan maayo maalintii ilaahay kugu daray saacadii ilaahay ku taray saacad lagu dari maayo laan ilaaha ballan qaaday saacadii inaan saacad lagu dareyn saacadna laga soo hormarinayn marka taas inaad intaad ka boodo cabsidu ay ka bootiso ee ay shabaabku ku badbaadinayna wara lacagta kan inta ku yiraadaan aad lacagti dhiibto ogow maanta hadii ay ogaal la'aan ka ahayd iyo hadii wax waa lagu qeexay waa lagu sheegay dambi waaye ogaalaad ku galo haysaa maanta wixii ka dambeeyo waa u bareero haysaa ganacsatada Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed waxaan leenahay maanta waa la idin cadeeyay diinta islaamka shariicada waxa ay ka qabto lacagta dadkaas la siinayo warwaad dilaa warwaad diin xiirayaal waa maqlis waa goorma khayr Allah siiya ragii inay nool yihiin maanta ay ka hadlaan wax weyn waay waxa soo haray
dadka meesha jira waa wiilasheenii waa kuwii qaraabada nala ahaa waa kuwii naga dhashay isma diidan maxaan isku diidanahay fikirkaas bas isku diidanahay wax kale isku diid dalkaanay wax kale yihiin ummadaanay ka mid yihiin waalidka iyo walaal iyo maxaan ku yiraahdaa sheekhood ya halkan jooga waxaan isku diidanahay waa fikirkaas wadar iyo waaxid yaa waalan war meeqa mujtamaca ka tihiin waxaan leeyahay wiilasha Soomaaliyeed idinkuna maanta xuja idinku oogan waa la idin sheegay waana la idin cadeeyay waxa aad ku jirtaan waxa ay yihiin ogaalaad ugu jirtaan maanta ka bacdi dambi ilaahay laga galan waxa ugu xun midka ogaal loo galo adoo og inay dambi tahay oo maxay kabaa'irta ay kamid tahay inaad gasho oo aad ku adkaysato dunuubta wax dambiga ugu sii xun oo ugu qaabdaran kaas waay maanta dadka Soomaaliyeed ama shabaab ha jiro ama xamar ha jooga ama Minnesota ha jooga ama maxaan ku yiraahdaa Dubai ha joogee waa u caddahay shabaab iyo waxay yihiin iyo macaamilkooda sida loola macaamili karo waxa lagala macaamili karo waxa lagala macaamili karo waa u caddahay waxa soo haray khayr Allah siya walaashay Faaduma daadka ka dhawaajisay haddana muxuu ahay lagu celiyay ifraadka iyo tafriidka shabaab maxaan kula dirsanaa waa sheegnay ra'yiga xun iyo talaabada qaloocan ee khaldan ay ku socdaan kula dirsanaa kan khamriga gaday xashiishka gaday qaab darrada iyo meelaha maxaan ku yiraahdaa dhaqan xumada ay ka socoto muxuu ahay fududeynayo maxaan ku yiraahdaa akhlaaqda iyo suluuga dadka muslimiinta lagu yaqaan ka guuraya ee walax kale oo anaga aanan garanayn sameynaya idaacadaha iyo facebookyada iyo social media dhex taagan ee cawrada iyo foolxumada iyo fawaaxishta ka sheekaynaya waxba kama sokeeyo shabaab inaad fawaaxish ka sheekayso intaad social media soo istaagtahay dimuqraadiyadna maaha xadaaradna maaha waa dambi gabadha iyo wiilka waxaa sameeyaana waxay ka duwan yihiin mala shabaab laana dilku waa meel fasahaadka ummadda dhexdiisa ana waa meel kale ummadda fasahaadkiisa inaad ka shaqayso oo aad tiraahdo aniga maanta meel oo waxaan joogaa magaciisa iyo suurtagal ma aha wax fiican ma aha cudurdaar uma haysatid gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeedna waxaan leeyahay idinkuna haddii shabaab gacantiisa uu dadka intuu ku dilo oo ku naar mutaysanaya adiga carabkaaga ku naar mutaysan carabkaaga iyo dhaqankaaga xun ha ku naar mutaysan gabdhaha Soomaaliyeed qaarkood ee inta is soo astura soo xijaabta haddana waxa ay ku hadlayaan ay ku hadaaqayaan ay walaxa la dhageysan karin ay yihiin xijaabka iyo isdadaboolka korko wax badan kuma tarayo waxa aad suubinayso oo dadka aad u sheegayso oo aad tusayso oo aad ku hanuuninayso kaas waaye kan oo maxaan ku yiraahdaa ee dhibaatada badan dawladda Soomaaliya raali kama aha kategorigaas dawlad ahaan ay noogu wada jiraan xumaanta ninka ka shaqeeya ee gabadha ka shaqeysa iyo midkaas shabaabka noqday ee gabadha shabaabada noqotay ama khawaarijta noqdeen waxba isma dooriyaan aan rabnaa dadka Soomaaliyeed in ay qiyamka islaamiga ah ee dhowrsan ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u soo dejiyay dadka inay sharaftooda iyo karaamadooda kor ugu kacdo sharaf iyo karaamo iyo caam inaan noqono haddaan meesha ay naga jirtaa nagama jirto qaawanaan ina waxa soo har intaas irsaaqada Ilaahay ka faala qaaday xumaan ha ku raadin taabuu gad xashiish gad maxaan ku yiraahdaa qamr suuq madow la soo gala xagga kala soo carar booliiska kala dhuume ee maxaan ku yiraahdaa gad kii qamriga wada mida arkaya waraakistan lacagta qaada ee iga leexo socodhe fasahaadkaasi waa jira waxa la dagaalami doonay kamid tahay ninkii falaarta ish uga dhacday ninka salka uga dhacday ninkii labada meel uga dhacday bal tan salka iga gooy aan fariiste waay shabaab waa falaartii fasalka aan iska gooynayno fariisanayna laakiin midda isha nooga taalno u soo soconnaa waa iska gooynaynaa aydan haddii alla yiraahdo waxaan u mahad celinayaa wasaaradda halkan isugu yimid ee u soo safray ee u yimid halkan inay barnaamijkan ka qayb galaan oo doorka ay ku leeyihiin ku qaataan
آدي أي أيجنا أنا وما هاد علينا إلهي محوها يسفر كين إسامها سوقات أجري حسنات الله يديك السين حنكون قنايا قبلها الصوماليات عادات وشو آدم وفرح سنة قبله إن العلمية الشام وهاي محنكون هذا سوء استعجان وهاي محنكون هذا كهلان لأن قبله هو أساس كقيسك قبله في عنا قيس في عنا أي كانت تربية محوها هاي أولاده هو يدو كبلاوضه هاي أب عنق يراه ماشى سكسب بلابته تربية ماشى كبلاته هو يدي في عن عنق في عن يسوع صارته مركو هو يمكن إنه يوحي قانان أو يوحبرتان أو يدينتي في قانان أو يدينتي أدوديان أو يفافينيان أو يكعليان وحادي عاد إلهي لو ما هاد عليه واي وأنا كل رجلنا هرؤسي صعدان لنا أنت كده بقول ليال دجال كشباب برشاد الصومالية ما أنت يكون كعضي الحمد لله إلهي أن مهد علينا مالهم والب ملهب على الجسارة ملهب اللي كعررين ملهب اللي كدومين ملهب يعني يا دجين وكسر عيسى وح إلهي لو مهد عليه واي زاز درادت رجدا إن نكون ورانا الشباب الآن وسودو ذا وحيرا قدم إلهي إلكس مالين تاسمركا حجك لا أنا جن نجو أوجن ما أنت شبابا أنت لقى مري كرن حاجة لقى استاهي كرن أنت لقى بحي كرن هدي ليرا ما أنت إلهي إذن كيس أنكسو جيسنا نمان كاس أنا قلنا دولة شعب عذر دار ما هيسن أن وحى هجاكسن إيه وحى صوبان أن كسم وين وعبسنا مديرة مسافر كرجيتك ومري كرن مديرة مد محنكو هذا هو يدي ولا عليها يا لحد جن شبابك وعبسنا يا يرا إلهي إذن كيس عبسدا سوى ضماني عبسدو وحي كم تهي وحي أباها إلهي ومضى أكو امتحان إلهي أن هاد علنو إلهي أن نقنو إلهي أن كاشنو وعبسدو وانا غيراني وانا نقبئه هدي قال لي يرا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان شباب بر يتقوى ما يفافين يعني كشقيان مركة تكلاوي سومه على صوت عيا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان على صوت عيا أنت سيك الشقيان ذنبي اسكدر نميم مجتمع إنه دقائن لواي عداوة إن دح عضو إن يمحوا هاي دتك إسدوليستان أيقون أي دوليستان ماشي أي مصلحات وجرتنا إن يمحوا هاي آيات من ذكر الله الحكيم أي دبق عاني هذا واقنا وحبا سمعنا مر أنت وشباب جد كتاعون ريبلو هداد إسدلا ده هي ما أركيس لكن واقش قيوها هوسو كل حجرة هذا وحي قبائل كي كل حجرة وحيلين ريبلا صوص عضو وإدين سو جود بيان هذا إدين سو جود بان بلايا كذا عادي ولقينا يمحوها إذا وحي سنة وردوا للنمو قبائل كسومالي شعب كسومالي كسو وردوا للنمو إهانة كوين شباب إنه كل جرة مجرته ولالك قبيل كل دري الجو شيء دقنا ليدهين حيرات ليدهين تاريخات ليدهين وحيد كلا علي إيقاب إذن كلا ريبات ليدهين يا كاريب يوم حو هاي مسكن جلبس كأجوش كوجر هذا قال ربع أنا تسكربته ماشي اللي قريب لهنا واجونا محو هاي آمين تيان هوصل دقن سيدي شعب تغني أو شيء نمان كاسي ما أنت meel lagu kala gabada ma joogna banaankan isu taagana kii ka soo noqdo ahlan wa sahlan kii ku sii jiro waxa noo socda waa dagaal ilaahay idankiis waxaan rabnaa cabsida ilaahay aan ka cabsano cabsida nimanka aan ka cabsanayna aan yareyno ducada iyo rabbi tooga ilaahayna aan badino allah aan ku xirnaano isaga baana meel marin ummadanne waxaan harona waa u sheegay haddana inaan ku celiyo ummaduhu dowladnimadu asbaabo kala duwan ay u jirtaa ummadu u sameystaan ummadii dowlad waxay u sameystaan inay qaran ka dhigto oo ay isku keento oo ay isku hayso oo wax ka dhaxeeyo qarannimadu wax isku keenayo inay qaran u sameyso wax ka dhaxeeyo isu haayo inay u sameyso dadaan islahayn isku diin ahayn isku meel aan ka imaanin shaqo aan isku lahayn waaye marka waxay dhaheen dowlad aan sameysano si ay qaran noogu dhisto oo wax naga dhaxeeyo ay noogu sameyso وباب مد كلا جرت أو أمد قرن سيدي دبو دولة وحي أسمى يستا
qarannimada ha noo ilaaliso diinta ha noo ilaaliso afka luqadda ha noo ilaaliso taqaaliidii caadaadka wanaagsan aan leenahay ha noo ilaaliso deegaanka iyo dalka ha noo ilaaliso dowlad sidaas ah loo annaga kuwaas dabaannahay qaranaan nahay waxaan u samaysanay dowlad waxyaabaha aan leenahay ee naga wada dhaxeeyo dowladnimadu inay noo ilaaliso waxaan naga wada dhaxeeya ugu horeeyna waa diinka dowladdu inay diinta ilaaliso oo dulmiga iyo baatilka iyo xumaanta iyo tafsiirka qalloocan ee diinta lagu soo darayahay ay ka ilaaliso waajib waaye dowladda saaran ilaahay idankiis waa ka ilaalinaynaa culimada iyo shacabkuna waxaan rabnaa inay nala ilaaliyaan oo ay meeshii qallooc ku jira farta ku fiiqaan oo ay noo sheegaan ay dhahaan meeshaan waxoogaa waa laga fiican yahay sidaan maahane si ka fiican oo loo sameeyo ayaa jirta in nala yiraa oo nala toosiyo waa ogolnahay waxaa soo haray bayaankii xikmadihii quruxda badnaay ee ku jiray waxaa ka mid ah golaha war ummad 100% muslimiin ah nahay dastuurka yarkaa ee inaan maxaan ku iraaday shu'uunteena gaarka aan ku hagaagsan aan ugu talagalna waxaa ku qoran dalkaani qaanuun kama dhismi karo shareecada islaamka khilaafsan dastuurkay ku taallaa horeyaaba lagu soo heshiiyo waa la isku raacay laakiin qaanuunkii la sameynayay shareecadu khilaafsan yahay iyo shareecada waa raacsan yahay yaa dhahayo wasiirka oo muxuu ahaay arrimaha diinta oo qaafta ma dhahayo wasiirada oo dhan sida maanta halkan quruxda badneed u taagnamay inta isku yimaadeen ay leeyihiin wadaad kasta masaajid ma inta ka istaago dhaha waa baadil mid kale masaajid kale inta ka istaago dhaha baadil ma waa sax yaa noo dhahayo dowladdii haddaan nahay yaa intaan u tagnaa dhahnaa qaanuunkan موافقسن يا شريعة مس موافقسنا علماء قف أمر رادي كرنو كوح أمر رادي كرنو ماشى سوايا ماشى كو دولة دي الدين تو إسكا وافقيا قانون ومضى يكون قانون شؤون تودو هوس يكون حيسنتو haddii la soo dejiyo budgetka dawladda meel looga daro dhaqaalaha u baahantaa la sameeyo la waxeeyo oo muxuu ahaay walaashay faado markiisa wasaaradani inay arrimaha diinta ay noqoto meelaha ugu horeeya inay arrimaha diinta ay noqoto meelaha ugu horeeya ay kamid tahay waxay kamid tahay oo kale waxyaabihii bayaanka ku jiray oo aad garateen inay muhiim tahay oo ahayday awqaafta zakaadka kulli in meel loo sameeyo in meel loo sameeyo war diintu zaman kasta iyo meel kasta ay sax ku tahay soo lama dhihin war zamanka aan joognaa wixii saxda ku ahay inaan sameeynaana laga rabaa oo karaamada iyo ciziga iyo sharafta ummadana kor u qaaday diinkana muxuu ahay mar walba waaba jiraa waa diinka inna lillahi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafid ilaahaba ballan qaaday in diinta xafidanto hada diintan duminayna ama diintan xafidayna annaga hadba nalooga baahne annaga inaan ku cibaadaysano oon maxaan raacnaana laga rabaa marka waxaan rabnaa shu'uunteena gaarka maxay ahayday ahlu makka adra waka annaga waxaan aragnaa maanta waxay tahay maxaa nidaamka federalismka loo sameeyay isku duruufo ma ahin isku baahi ma ahin isku hab nololeed ma ahin mid xoolo kaliya dhaqdo mid xoolo iyo beer dhaqdo mid beer kaliya dhaqdo mid kalluumaysta kalluun bas ku nool mid walba shu'uuntiisa wuxuu u baahan yahay in maxaan ku la hagaajiyo oo la address gareeyo oo laga shaqeeyo u baahan yahay saas daraaddeed qawaaniinta waxaan u samaynaynaa shu'uuntaas maxaan ku irahdaa kala gaagaarka in la mideeyo midii la miday karina mid walba wixii ku habboonay laga yiraahdo laakiin waxaasi aslan wa faslan ma raacsan yihiin shareecada islaamka adduunyada aan joogno waa maqasheen armis embargo waa nasaara armis embargogii waa la khafiifi waxaa naloo sameeyay wax la yidhaha compliance waa inaad qawaaniinta caalamiga ee jirto sidaana waa inaad raacdaa oo la isku raacay oo caalamka oo dhan isku raacay caalamka idinkuna ka mid tihiin waxaas maxaa la yiraahdaa waa compliance inta uga dhacday
intaa ka qaladay ma aha armis embargogeena keliya waa aragtay arrimaha oo nimankan dhibka badan oo khawaarijta adduunyada markay kusoo biireen wax cusub waa kusoo biiray adduunkii soo qawaaniin cusub iyo nidaam cusub adduunyada iyaduna ay la imaanaysaa si nimankan loo xakameeyo waxaa la yiraahdo bangiyada iyo hay-adaha lacagta iyo meel kastoo ay caalamka joogaan isku hal nidaamo laysku wada ilaalinayo oo nimanka midda aan leenahay dhaqaalaha aan ka celin ay ka mid tahay oo looga ilaalinayo sidaas daraaddeed nolosheenna habnololeedkeenna dhaqankeenna waxaynana intaan ku horeynaa inaan compliance oo ilaahay inaan muxuu ahay iyo wixii uu yiri inaan compliant u nahay oo aan raacsannahay oo waafaqsannahay inaan la nimaado ka shaki mayno ka cabsan mayno kana gaabi mayno inaan ku dhawaaqno oo cod dheer ku dhahno waxa ilaahay raalli ka yahay ayaan raalli ka nahay dadkeena nimcada ugu horeyso ilaahay siiyey waa inuu 100% muslimiin ka dhigay inta yartaa ee hadda laga yaabo social media inaad ka aragtaan oo diimo kala sheeganaya ama dhaqamo kala sheeganaya shabaaba oo asal sabab u ah lianna shabaab iyo dhibkiisa hadaan imaalahayn dalkan kama bixi lahayn ma tagi lahayn dhaqamadaas xun meelaha ay ka jiraan ma tagi lahayn ummadoodan muslimiinta 100% ku dhax noolaa lahaayeen haddii ay dambaabayaan xataa dambi yar oo muxuu khafiif hadda dambiyo waaweyn dadka qaarkiis ay galeen markii ay meelaha qaarkood ay tageen meelaha qaarkoodna waa ku faraxsanahay waan ku faanaynaa haddaatay dadka ugu badan muxuu xufaada la inaan nahay laakiin waxaa ugu badan dadka ugu badan ee dibadda markii ummaduhu islaamku ay dibadda u baxeen dadka ugu badan ee masaajidda dhisa ee masaajidda camira ee magaalooyin aan masaajid balaha jirin masaajid u yeelay ee magaalooyin hal masaajid oo meel dhexe oo lasoo wada higsada lahaa jiray 10 masjid muxuu ahay u yeelay inaan nahayna waa ku faanayna dal deegaano ummadda muslimiinta ay jooga ay ka baqaan ama ka xishoodaan xijaabka gabdhahooda inay qaataan intaan tagnay yaan jalbaabki dheeray anagoo wadanaan la tagnay markaasaa kuwii shalay ka cabsanaya ama ka xishoonaya inay madaxa daboolaan iyo wixiina ay xijaabkooda la soo baxeen maxaa ka fiican oo lagu faani lahay waxaanan cudurdaar u helaynin aniga muslimaan ahay magaca muslimkaan sheegana qof kaloo muslimaan dhiiggiisa daadina xoolihiisa nahba nolosha kale yani intii haddaata la sheegay kuwa aan muslimiinta ahayn islaamka aan ahayn aad la heshiiya la noolaada la dhaqma haddii aanay idinla dagaalamayn guryihiina aanay idinka bixinayn diinkiina aanay yani fiiri midkaa marka guryihiina dadka ka bixina dadkiina tarab iyo boqolaal iyo kumanaal u dila xoolahoodiina marba magac gooni inta u baxa oo aan shariica islaam aan shaqo kuleen ku qaadana warnimanka waa noo dhuunteena intaan ka bacda nooma dhuunsanaa karaan aan iska qabanno waana iska qabanay aan dhamaystirna haddii aan la yiraahdo aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin ilaahay idinkiis waxaan ka rajaynaa culimada safarka maanta bilowday inuu sii socdo oo maalin walba ay wax horle kusii darsoomaan nimankaas dagaalkoodana aashunku adan ma aha heela qarsoonna heela ma aha banaanka loo soo istaago dadka Soomaaliyeed dhagahooda iyo indhahooda alla tuso alla maqashiyo nimankaas inay qaldayn aanan ku celcelino waliba ku celcelino si aan dadka intii aan maqlin hal maalin wax ma wada maqlaan dadka inta aan maqlin inta aan fahmin inta aan ku dhiiranayn si ay u dhiiradaan u maqlaan u fahmaan hadii alla yiraahdo aad iyo aad u mahadsantihiin allah idin sharfo